Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada Higgs Technology. Waxaan ahay Maxamed Xirsi. Maanta hadduu alla idmo waxaan qaadan doonaa oo aan idin sharaxi doonaa kala saari doonaana cashir ku saabsan sida loo suubiyo business card. Markasta oo aad sameynaysid design waxaan u baahan tahay inaad ka fikirto qaabka uu jecel yahay qofka customka ku ah ama macaamilka ku ah iyo rabitaankiisa. balse intaanan waxyaabaadkaas gelin bal aan soo kiciyo Adobe Illustrator. Waxaan hore usoo sheegnay markasta oo aad rabtid inaad project ka suubisid Adobe Illustrator in ay muhiim tahay inaad ogaatid meesha laga soo furo projectigaaga amase laga bilaabo. Waxaad aadaysaa file kadibna waxaad leedahay new. Halkaas markaad maraysid waxa kuu soo baxaya daaqadan yar oo ay ku qoran tahay name. Maanta waxaa sameynayna maxay yihiin? Waxaa sameynayna waa business card waa gartay. Inta waxaad ka dhigi kartaa inaad ka dhigtid print maadaama business cardkaaga aad daabacan kartid oo aad daabacan doontid. Halkan page-ka aad doonaysid waa meeqa? Waa 2 maxaa yeelay business cardka waxa uu ka kooban yahay 2 side, front side iyo back side. Qofka macaamilkaaga haddii aad wareysatid oo uu ku dhaho waxaan u baahanahay inuu 2 side-ka wax ku qoran yihiin hore iyo gadaalba inay wax ugu qoran yihiin business cardkayga, waxa waajib kugu ah inaad inta ka dhigtid 2. kadib letterka iyo waxyaabaadkan kale inaad bedesho looma baahna. Waxaad u baahan tahay inaad inta ka bedeshid maanta size-ka nooca size aad dooranaya. Maanta waxaa dooranaya inch. Kadib cabirka width-ka amase waxa la dhaho balaca meequu u yahay business card. Standard ahaan business cardka waa 3.5 inch balac. Marka la dhaho joogana waxa uu yahay 2 inch. Kadib waxaad sameynaysaa meeshaan waxaad ka bedeli kartaa height-ga iyo definition-ka qaabka uu kusoo baxaayo balse 300 waa wax iska normal ah oo aan meesha ugu high sareyso oo lagu sameeyo design-ka. Si qurxoon ayuu hadhow kusoo bixi doonaa. Kadib waxaad leedahay okay. Waxaa kuu soo baxay 2 page. Page-kan waa front side kanna waa back side. Kadib waxaad sameynaysaa kana click ku siinaysaa kadib control 0 si uu kugu soo dhawaado. Markasta oo business card aad sameynaysid waxaa muhiim ah inaad fahantid in qofka shirkadiisa loogadiisa aad haysatid, in kalarka ay isticmaasho shirkadiisa aad taqaanid, in aad heshid business cardka waxaa loo suubiyaa qof shirkada magaceeda bis lagu qoro ma la dhiibayo. Marka qofkaas muxuu yahay oo title-kiisa muxuu yahay, taleefankiisa, email hadduu isticmaalo ama shirkada email ay isticmaasho. Waxa kaloo la iska rabaa waxaa weeyaan website-ka shirkadda. Intaas front side-ka waaye. Okay. Aan hore u socodsiino. Waxaan ka bilaabeynaa kalarka shirkadda. Maanta Higgs Technology ayaa business card u sameynaynaa. Aad soo doorto rectangle tool. Geeskaas ayaa ka bilaabayaa. Design aan aniga bilaabayo waa kadib intaa keenaya. Wuxuu yeeshay 2 kalar oo ah filled oo dhexda ah iyo stroke color oo goyga ah. Stroke color intana waa ka baabi'in kartaa oo nan waa dhigi kartaa. Intana waa ka baabi'i kartaa. Inta usoo kormarisid nan waa dhigi kartaa. Filled inta ka buuxinaysa inta ka buuxinaya. This waa color. Kalarkan waxa waaye blue color. Shirkadan Higgs Tech waa kalar ay isticmaasho. Sidoo kale kalar kale ee aad u jeceshahay oo la isticmaasho kana jiro waxaa sameynaya kana control C control F ayaa leeyahay. Macnaha copy ayaa dhahay replace-na waxaa ku dhahay ama paste waxaa ku dhahay isla meesha ay joogo. Kadib waa soo jiidaya muuska aad isticmaalaysid. Kadib inta markaa keentid kan waa yareynaysaa geeska qabanaysaa ilaa calaamad inta markaa keentid calaamadaas isku bedelaysaa. 2 falaarood yeelanaysaa kadib waa jiidaysaa. Wali yaree kadib kalarka bedel orange. Wali waxaan rabaa kana weyn inaan yareeyo isna kadib ka daba dhaweey.
markaa sameysid waxaan kaa rabaa inaan soo geliyo marka loogadii shirkadda. loogada shirkadda hadday png tahay iyo haddii kale waxaan kusoo gelinayaa file, kadibna waxaan leeyahay open, kadib meesha ay ku jirto, kadib waatana ama waatana daarada soo qaadaya control. waa yartahay waa weyn tahay loogada marka halkaasaa tagaysaa, calaamad marka saas noqoto waa soo jiidaysaa adoo alta iyo shift isla hayo, kadib control 0 waa soo dhaweynaysaa. shucaac waxaasaa ku jiro saa ujeedaan, waxaa ka saarayaa trace, image trace aa leedahay. loogada hadday color iyo waxaas ay leedahay oo color kala duwan leedahay, image trace ku fiicno waxaa leedahay high quality, balse aniga colorkeeda rasmiga ayuu kusoo bixi doonaa. marka waxaa sameynayaa track aan leeyahay, kadib waxaa leeyahay extend, kadib ungroup, kadib waxaa ku dhufanayaa kaas black ah, click siinaya shiftina waa qabanaya, kan black click siinaya shift anoo sii hayo, weli shiftidaa sii haynaa, kana ku dhufanaya, kadib group ayaa leeyahay, kadib waa jiidayaa business cardka meeshiisaa geenaya, waa kana. kadib waa weyn tahay loogada iga yaree, kadib inta keen kalarka loogada sii, weli hadday yaraato loogada waa weyneyn karnaa. halkaas markaa maraysid magaca shirkadda waxaa la lahaa x iyo interde technology, x technology fartan boldia ka dhigaa, waxay waaweyneynayaan, tanna waa yareynayaa, charts aa leeyahay, waxaan rabaa inaan wax yar ah isla simo, kadib tan hoose waxaa leeyahay idrop ka taabanaya, kalarka oranjiga sii, kanna kalarka blacka sii, bluega sii, x technology waa soo weyneynaya wax yar waxaa sameynayaa, kana waxaa rabaa inaan kor u jiido, kadib waxaa taabanayaa charts, kadib waxaa leeyahay tan hoos u yaree, okay spaceka yareey dhexdooda ahaa, weli hoos u deji falaar adoo isticmaalaysid, waa gartay. kan markaa siisaan ku dhaafo, waxaa sameynayaa loogadii aa keensaday halkan ii taala, maxaa ii dhiman wax la laho qofka loo sameynayo magaciis, waxaa la yiraahdaa Mohamed Xirsi, anoo soo jeedinaya iskaar highlight wada saar, farta hadaa rabto iska bedel, kadib weynee, kalarka bedel blue ka dhig, idrop keyboard ka taabo ama idropkan soo taabo isku mid waa, keyboard ka taabo meesha kalarka rabta saaro, kadib haddana textiga soo dooro, soo qor muxuu qabtaa qofkan, waa graphical designer, highlight wada saar control a, iga yaree farta, boldiga ka qaad regular ka dhig, wax yar ku dar, kadib kalarka ka rabaa inaan ka bedelo, idropkan soo dooro ama ay taabo, kadib kalarkan dooro oranjiga ah, haddaan rabo inta waa ka dooran karaa oo inta waa ka tegi karaa, waxba isma dooriyaan. magaca markaas u qortid, waxaa iga dhiman waxaa la laho qofkan contactkiisa iyo waxyaalahaas, okay inta tagayaa, waxaad promotion tool aa soo dooranayaa, inta keenaa anoo hayo alt iyo shift aa soo jiidaa, muuska isticmaalaya, waxaan rabaa inaan kala wareejiyo, adoo shift sida
geeska saa qabanaysa saas camal aad tagay markay calaamadaas noqoto waa wareejinay shift aad haysid okay is wareejisid kili ku sii alt qabo oo soo jiid inay isku aadinta waxa ku ogaanay calaamadaas cagaarka oo dhaxda ka soo baxayso sida control d dheh copy dhahday paste intu sii dhahaasna waa gartay marka waxaa sameynaysaa iconada soo gelinaya soo dooro text kusoo kor dhufo kadib waxaa taabataa ereyga la dhaho z highlight saar yacni aniga type far nooca oo waxa igu jirto la dhaho typecon-kaas waxaa iigu dhex jiro saa ujeedaan icon laakiin dii iconada aa u baahatid google-ka ka raadin kartaa waxaa qoraysaa phone maahano phone icon aa qoraysaa kadib waxaa kusoo baxay phone calaamadaas iconka waxaa waaye yani astaanta taleefonka lagu yaqaano waa sidaas halka markaa maraayo alt adoo sidaa soo jiidaysaa copy soo dhehaysaa baa inta keenaysaa waa ka foqaysaa control d hadana inta waxaa ku qori doonaa text oo ah phone ku saabsan intana waxaa ku qori doonaa email oo bashqadaas ku saabsan intana waxaa ku qori doonaa web oo d iconada intee keenaa iconadan icon igu jiro waa far igu jirto oo typecon lahaa waa kasaa magaceeda typecon lahaa waa soo degsan kartaa google raadi meel text laga soo dejiyaa jirto kadib computerka installation caadi ugu shubeysaa kadib caadi kugu soo baxaya agatay taleefanka marka text soo dooro taleefanka qor taleefanka waxa muhiim ah laba taleefan midka koowaad waa qofkan oo laga helo qofkan business kaarkiisa waa halkan ku qorto maxay haysta taleefankiisa rasmiga ah iyo taleefanka shirkadda inaad isku qorto maxaa yeelay beri ka maalin ninkan wuu u baahnaan karaa shirkadda taleefanka inuu dansanaan karaa qofka iska leh soo shirkadda in qofkaas inuu helo meel kale oo shirkadda kala soo xiriiro marka taleefankiisa wuxuu yahay plus 25261864646 doobaad waxaa sameyn kartaa qayb ka dhigi kartaa lambarkiisa koowaad waa kan oo rasmiga ah lambarka shirkadda oo kala soo xiriiraya ninka soo qaata line waaye 252859697 landline waaye labadaas taleefan iskale midna waa landline shirkadda midna waxaa waaye linekiisa caadiga oo gacan kadib highlight saar blue waxaa doorata airdrop kadib blue ka dhig doonta waxaa ka dhigi kartaa highlight waa saar bold ka dhig farta okay kan oo ah kalaradan madowga ah adoo shift haysid ku wada dhufo kadib airdrop taabo i white ka dhig okay kan waxaa rabaa labadan inaad soo koobiyeysto highlight wada saar alt taabo markii calaamad laba falaar ay samaysanto oo halkii falaar saas ahayd laba falaar ay noqoto marka alt qabatid waa soo jiidaysaa adoo ilaalinaya in isla sinaashaheeda intaa dhigaysaa waxaa rabaa laba email inaad subsado emailkood waxaa la health waa ninka xirta iska leh healthfiles@gmail.com kan kala tagaysaa emailkiisa kale waxaa waaye xtech raahdo hormariyo info@xtech.so marka waxaa qurux badan kuwan hoose inaa bold ka dhaaftid oo regulated ka dhigtid regular ka dhigtid kuwan hoose bold ka dhaaf regular ka dhig kadib kana u imaanaysaa oo ah pagekii soo koobiye sida data soo koobiyeysid kan waa website rasmiga ee shirkadda waxaa la lahaa website-kan www.
xtech.so kana info was meesha igu qornaada si laftirkiisa waa meel laga soo xiriiri karo ismika ku sameysmo waxaa kaloo ku dari karaa waxyaabaha qurux ah intaan leeyahay wax soo qaada rectangle-kan intaa xakeena calaamad noocaas ah intana sidoo kale ku aadkiisa xakeena calaamad kale noocaas waxaan moodaa xoogaa inay bold tahay tan waxaa leedahay eyedropka doorana kalarka iga bedelo halkaas waxaa ku dhamaaday business cardkaas qaybtiisa hore front size-ka inta ku dhamaatay back side-ka see loo sameeyaa marka back side-ka inta keli ku dheh control 0 dheh back side-ka kusoo baxay kadib waxaa soo dooranaa rectangle tool geeskaas kasoo bilaaba geeskaas kale geena color orange ii noqday mar rabo color orange color blue ii geli kalarkan buluuga ma kusaanya waa kalarka shirkadii caan ku tahay loogadeeda soo qaada control minus kadib geeskaan tag loogada waatana highlight soo saar macalaa magaceeda kadib alt adoo soo jiid inta keen waxaa moodaa hoos inay jirto shift control bracket open ah siinaysa kadib highlight soo wada saar alignment dhexda gee kadib waxaa moodaa loogadaada iyo kalarka backgroundka isku eg soo baxaysa marka kadib see ku bedeleysaa highlight markaa wada saartid kan dambe backgroundka shift adoo haysataa keli ku siinaysa wuu ka haraya loogada bisa ku saar iyo magac kadib field tag kadib waxaad doorataa white color backgroundkana saan wuxuu noqonaya marka backgroundkana saan wuxuu noqonaya qaybta gadaale back side-ka business card saan wuxuu noqonaya my control minus aan leeyahay waxaan rabaa inay isku soo dhawaadaan business card noqonaysa haddii waxyaabaad kale ku qancin waaya ay jiraan oo ku noqon karta hadda intoo kale ku noqonaynaa qaybta hore front side-ka click ku sii control 0 dheh soo dhaweey qolooyinkan hoos hoose waxaa ka dhigayaa oo yaryar orange waxaa soo dooranaya ellipse qaybtan eyedropka kadib waxaa dooranaya colorkan okay qaybtan kalaradan haddii ku qancin waayaan waa isdhahda colorkan waa laga fiican yahay waxaa highlight waa saaraysa ayaga dhan hal mar kadib eyedrop ama eye keyboard ka taabanaysa kadib colorkaas ka bedelaysa blue ka dhiganaysa okay yareeya marka haddana control minus dheh ayaga dhan isu keen labadooda sidaas u noqona marka business cardkaaga marka saas kusoo baxaya technology front side-keeda waa kana back side-keedana waa kana business cardkaas isku dhimay haddii aad u baahatid inaad sii qurxiso sii qurxin kartaa intaa waxaa ka saaraysaa calaamadan ka saari karaa kadib white-ka dooranaya kalarka intana sidoo kale alt anoo haayo hoostaan geynaya hadaa u baahdid inaad ka yareedid oo ay zaid kugu tahay waa iska yareynaysaa hadba waxay ku qurxoon tahay isku dayay u baahan tahay oo keliya hadba waxay ku qurxoon tahay sameynaysaa waa dhamaatay business cardkan sidaan ku daabacan marka intaa daabicin marka qofka ka shaqeeya meelaha printerada waxaa looga baahan yahay wuxuu leeyahay export ma inta file inta dhaho export dhaho ma uu ku save gareynayaa sawir note waxaa la rabaa inuu ku save gareeyo file dheh save as dheh inta waxaa doorataa meeshaan hoose adobe ay ku qoran tahay illustrator waxaa ka doorataa pdf kadib sidaas ku save gareey meesha aragtida dooranaysaa placeka projectiga facebook hore meesha ay ku qoran tahay folder aan soo gelinayaa folder kadib waxaa u qorayaa business card kadib hubin
businesskaas ka furaya kadib inta save ku dhaha save galaa soo furyeerno intaa galno pix kadib project kadib businesska kadib aan soo furno yarayno page waa saan waaye page kale waa saan waaye falaarta ay ka bedeli kartaa qof businesskaaga ka daabacaysa marka kanaa marka kula daabacay pagekan kadib waa gedinaya warqadii printer gees kale soo gelinay kanaa daabacay kadib waxuu noqonaa double side oo qurux badan oo noqonaya businesskaaga aada u mahadsantihiin sida ula socoteen cashirkeena haddii cashirkan uu ku caawiyey oo aad u bagtay fadlan subscribe ha iloobin like ku qabo sharena saar waxaan idinka codsanaynaa dhammaantiin asxaabta inaad la socon doontiin maalmaha uu socdo casharada ay soo baxayaan maalin walba oo isniin ah waxaa soo saari doonaa cashir ku saabsan Adobe Illustrator maybe in haddii aad naga soo codsataan koorsooyin ku saabsan Photoshop ama Adobe InDesign aan bilaabi karno iyadana balse waxay u baahan tahay hadba dadka aan helno oo macaamiisha ah oo nala soo hadlo thank you very much soo dhawaada